Aan ku horeysiinay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa xalay kulan la qaatay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. Wafdi uu hogaaminayay gudoomiye Muudey ayaa gelinkii dambe uu shalay gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa uuna xalay xarunta madaxtooyada maamulka uu kula kulmay madaxweyne Laftigreen. Kulanka dhex maray labada dhinac ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka, arrimaha doorashada dalka ka dhacaya oo khilaaf uu ka taagan yahay iyo qodobo kale. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in gudoomiye Muudey uu madaxweyne Laftigreen ka dalbaday in uu qayb ka noqdo sidii loo xalin lahaa khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashada dalka ka dhacaysa oo weli la isku mari laayahay. Sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si gaar ah iskaga xog wareystay xaaladda deegaanada maamulka iyo shaqooyinka halkaasi ka socda. Waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday Maxamed Yuusuf Xaaji oo ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya. Maxamed Yuusuf oo ahaa senatarka ismaamulka Gaarisa kana tirsanaa aqalka sare ee dalka Kenya ayaa waxaa geeridiisa xaqiijiyay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo isna laga soo doorto magaalada Gaarisa. Muddo 4 ilaa 5 bilood ayuu xanuunsanayay. Marka horena sinta ayaa laga hayay dalka Turkiga ayaana lagu soo daweeyay ayuu yiri Aadan Barre. Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa muddooyinkii dambe hogaaminayay guddi loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan wax ka beddelka la doonayo in lagu sameeyo dastuurka dalka Kenya. Marxuumka ayaa horey u soo noqday wasiirka difaaca ee dalka Kenya xilligii madaxweyne Mwai Kibaki, waxa uuna sidoo kale soo noqday barasaab gobol iyo xildhibaankii deegaanka Ijara ee ismaamulka Gaarisa. Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa ahaa aabaha dhalay agaasimaha guud ee dacwad oogaha dalka Kenya Nuruddin Xaaji, waxa uuna marxuumka oo aad loogu yaqaan magaca Yuusuf Xaaji dhashay sanadkii 1940 waxa uuna ku dhashay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida ay degto ee Kenya, gaar ahaan Gaarisa. Waxa uuna dhalay ilaa 9 caruur ah. waxaa caruurtiisa ka mid ahaa Nuruddin Yuusuf Xaaji oo iminka ah dacwad oogaha guud ee Kenya, kaas oo lagu garanayo in uu dacwad ku soo oogay siyaasiyiin caan ah oo qaarkood ay hayaan xilal sare oo lagu eedeeyay musuqmaasuq. Ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo gaar ah ka sameeyay tuulada Marajo iyo dhulka buuraleyda ee hoostaga sida Booche iyo Habar Hagoogane, waxaana la sheegay inay ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in xubnahan la qabtay inuu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana xubnahaasi ay ahaayeen kuwa aasaminooyinka la geliyo wadooyin ka tirsan gobolka Bari. Saraakiisha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen xubnaha la qabtay ay miinooyinka ku aaseen wadada isku xirta Bilkhadar, Karin iyo deegaano kale oo dhowr jeer lagu qarxiyay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. Ugu dambeyntiina saraakiisha ciidamada PSF la yiraahdo ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidamadu gacanta ku dhigeen maadaama ay Al-Shabaab u isticmaaleen waxyaabaha qarxa isla markaana ay ka hortageen weerar ay doonayeen inay fuliyaan. Ciidamada Puntland ayaa dhowr jeer waxa ay weerar kala kulmeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxaana sidoo kale mararka qaar ay sameeyaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo kooxda Daacish oo ka mid ah kuwa weerarada ka geysta deegaanada maamulka Puntland. Ugu dambeyntiina ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee xilka sii haya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xalay shir gudoomiyay kulan looga hadlayay xakameynta cudurka halista ee COVID-19 oo soo laba kacleeyay. Kulan ay ka qayb galeen golaha wasiirada xukuumadda ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurka COVID-19 oo si weyn ugu soo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya. Sidoo kale inta uu socday ayaa waxaa la soo hadal qaaday sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta dadka laga siinayo cudurkan si uu u faafin, waxaana dowladda ay sheegtay in ay dib u bilaabayso qorshaha looga hortago faafidiisa. Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Ibikar Yuusuf ayaa xustay in tirada kiisaska xanuunka ay sii kordhayaan isla markaana ay muuqato oo laba kacleyntii labaad ee cudurka. Sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa kordhay tirada kiisaska cudurka corona iyadoo dhimasho badanna la soo warinayo. Sidoo kale waxaa jira bukaano badan oo la geeyay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. wararkii gudaha waa naga intaan dib idin kugu celiyo barnaamijka subax wanaagsan.